بسم الله السلام عليكم عشركم waxaan doonayaa inaan ku sharxo jajabka uu hooseeyihiisu sinnayn amaba adding fractions or subtracting with different denominator cashirka hore sida la socoteen waxaan ku sharaxnay jajabka uu hooseeyihiisu siman yahay marka la socda kana hadii aan haysano marka 2 loo qaybiyo 5 lagu daray 1 loo qaybiyo 2 maxaan sameynaynaa hooseeyihii waa kana waa 2dan iyo 5tan marka 2 iyo 5 isku mid ma ahan maxaan sameynaynaa marka waxa aan sameynaynaa waxa weeyaan in aan sinno hooseeyaha kadibna aan u xalino sida kii hore ee hooseeyihiisu sinna aan u xalinayn si aan u sinno marka labada lambar waxaan fiirinaynaa kan yar lambar hadii lagu dhufto na siinaya kan weyn marka hadda labaan haysanaa labada lambar kan yar 5 iyo 2 laba yar marka waxaan fiirinaynaa laba wax lagu dhufto oo na siinaya 5 ma jiraan jawaabtu waa maya sababtoo hadaan hal ku dhufana 2 waa 2 hadii aan 2 ku dhufanana waa 4 hadii aan 3 ku dhufanana waa 6 marka waxaan sameynaynaa markaas hadii aysan jirin lambar labadooda hadii aan ku dhufana kan yar na siinaya kan weyn labadooda ayaan si isdhaaf isugu dhufanaynaa labana waxaan ku dhufanaynaa halkan 5na waxaan ku dhufanaynaa maxay halkan si aan marka taa u sameyno waxaan sameynaynaa halkan waxaad ku dhufataa 2 marka wixii aad hoos ku sameeyso waa inaad korna ku sameeyso waxaan dhahaynaa 2 lagu dhuftay 2 halkan sidoo kale 5 ayaan ku dhufanaynaa halkanna maxaan ku dhufanaynaa maxay 5 kadib waxaad qoraysaa xisaabta cusub ee ku soo baxday 2 lagu dhuftay korka waa 4 2 5 lagu dhuftayna waa 10 lagu daray 1 5 lagu dhuftay waa 5 loo qaybiyay 2 5 lagu dhuftay oo ah 10 hadda waxaan ka dhignay jajab uu hooseeyihiisu maxay siman yahay marka waxaan u xalinaynaa sida kii hore aan u xalinay labadan lambar waxaan iri mid baa laga soo qaadanayaa 10 labada korna waa la isku darayaa 4 lagu daray 5 ayaan leenahay sidaas waxay noo ugu soo baxayaa maxay 9 loo qaybiyay 10 ma sii fududeyn karnaa oo labada lambar wax ka dhaxeeyo labadaba loo qaybin kara ma jiraan waa maya sidaas ayaan ku deynaynaa marka hadii aan haysano tusaale labaad oo ah 3 loo qaybiyay 8 lagu daray 1 loo qaybiyay 4 maxaan sameynaynaa waxa aan sameynayna waxa weeyaan sidii hore aan u sheegay inaan fiirino labada lambar ee hooseeyaha ah kan yar ma ka dhigi karnaa sida kan weyn jawaabtu waxa weeyaan haa oo hadii aan halkan labada ee 4tan hadaan ku dhufano 2 waxa inoo soo baxaya maxay 8 sidaas ayaan ku sinay marka halkan waxaan ku dhufanaynaa 2 meeshan kore kana sidiisaan u deynaynaa qaybtan sideedaan u deynaynaa sideed ayaan u soo qaadanaynaa waxaan leenahay 3 loo qaybiyay 8 lagu daray 2 lagu dhuftay oo ah 2 iyo 4 lagu dhuftay oo ah 8 sidaas hooseeyihii maxay waan sinay oo laba lambar oo isku mid ayaan ka dhignay marka waxaan leenahay halka soo qaado 3 lagu daray 2 waa maxay waa 5 loo qaybiyay 8 sidaasna waxa kugu soo baxaya maxay jawaabta ugu dambayso okay hadii aan haysano tusaale kale oo ah 8 loo qaybiyay 9 laga jaray 1 loo qaybiyay 3 maxaan sameynaynaa sidii baan sameynaynaa 3 maxaa ku dhufanayo 9 na siinay waa 3 kale korna 3da ku dhufo 8 iyo 9 ka qaybta kale sideeda u daa sideeda u soo qaado 8 loo qaybiyay 9 laga jaray marka laga jaraydan waxba la yaabin hadii laga jaray aad haysatay hadii aad lagu daray haysataba jajabka isku si baa loo xaliyaa marka isku darka iyo isku kala jarka labadaba waa isku mid sidaas ayaan macnaha tusaale kale oo kala jar ah aan u xalinayaa meeshan marka laga jaray aan leenahay 3 loo qaybiyay maxay 9 hooseeyihii isku mid ayaan ka dhignay waxaan leenahay marka halka 9 soo qaado 8 laga jaray 3 meeshan waxa ku soo baxaya sidaas 5 loo qaybiyay 9 ma sii fududeyn karnaa jawaabtu ma maya sideedaan u deynaynaa ugu dambeyntii hadaan haysano 39 loo qaybiyay 100 laga jaray 7 loo qaybiyay 20 maxaan sameynaynaa sidii aan sheegay baan sameynaynaa oo ahayd maxay lambarka yar inaan kan weyn camal ka dhigno marka waxaan sameynaynaa hadii aan 2 aan ku dhufano 20 40 ay noqonaysaa hadii aan 3 ku dhufano 60 bay noqonaysaa hadii aan ku dhufano 4 waxay noqonaysaa maxay 80 laakiin hadii aan 5 ku dhufano maxay noqonaysaa 5 eber ku dhufo waa eber 5 2 ku dhufana waa 10 waxa inoo soo baxaya maxay 100 baa inoo soo baxay marka sidaas waxaan ka dhignay hooseeyihii waan sinay marka hana iloobin inaad korna ku dhufato maxay 5
marka 39 loo qaybiyo 100 sideeda u soo qaado laga jaray 35 7 5 lagu dhuftay waa 35 loo qaybiyo 100 kadib sii wad 100 ka soo qaado waxaad samaysaa 39 hadii laga jaro 35 maxay noqonaysaa 4 ma fududeyn karnaa lambarkan waan fududeyn karnaa hadii halkan 4 loo qaybiyo waa 1 4 loo qaybiyo 100 hadii 4 loo qaybiyana maxay noqonaysaa maxay 25 sidaas waxa ku soo baxay 1 loo qaybiyo 25 jawaabta ugu dambaysa mararka qaar waxa laga yaabaa inuu ku siiyo waxaan ay dhahaan improper fraction inuu ku siiyo laga yaabaa improper fraction wax kale ma ahan 1 iyo bar hadii aad haysato oo kale lagu daray 2 loo qaybiyo 3 maxaad sameynaysaa improper fraction kan 1 iyo barkan waa inaad u bedesho maxay proper fraction oo ah sida kan oo kale marka wax kale ma sameynaysid waa sida aad taqaano labada waxa lagu dhufanayaa kan kadibna kana lagu darayaa kareeya laga dhigayaa waxaan loo qaybinayaa lambarka hore meesha u yaal marka xisaabta improper fraction ka aan hagaajino hal laba lagu dhuftay macnaha lambarka u qaybsan sidiisa u soo qaado marka laba hal lagu dhuftay waa 2 lagu daray halna waxay ku noqonaysaa 3 lagu daray baan leenahay 2 loo qaybiyay 3 marka halkan 2 lagu daray 3 maxay noqonaysaa 2 lagu daray hal baan ka wadaa 3 bay noqonaysaa sidaas waxa kugu soo baxayo hooseeyaha inaad sintaad u baahan tahay si isdhaafsan isugu dhufo maadaama aanan labadooda wax isku mid aan helaynin marka halkan 3 ku dhufo halkanna 3 ku dhufo halkan 2 ku dhufo halkanna 2 ku dhufo ugu dambeyntii waxa ku soo baxaya 9 loo qaybiyo 6 lagu daray 4 loo qaybiyo 6 siwad labada 6 hal xabo ka soo qaado 9 lagu daray 4 na waa maxay waa 13 marka ma sii fududeyn karno sideeda ayaan ku deenaynaa cashirkan intaas uu ka egyahay la socda casharada kale aad baan idin salaamay assalaamu calaykum